وهاجاك waxaan u gudbaynaa markaa protocolka inuu soconay ee loo yaqaanay oo dib maanu noqday sorry protocolka inuu soconay ee loo yaqaano negative resolution protocol ayaanu imanaynaa oo ka noqonaya waa protocolka inuu socono ama halka ay u dhimatay negative resolution protocol ama protocolkaasi wuxuu saacidayaa dib aanu laabto wuxuu ku saacidayaa when the two branches marka laba branch oo rotaries want to tunnel some traffic ay rabaan inay tunnel gareeyaan traffic ay tunnelka dhex marayaan waa inay yaqaanaan IP addresska ay isticmaalayaan waa siday ku garanayaan inay IP addresska isticmaalayaan then the solves the tunnel IP address with public address inta badan waxaa haboon in tunnelka dhamaadkiisu uu isticmaalayo wax loo yaqaano tunnelka halka lagu maabgaraynayo yani source interface kaasi uu noqdo public IP address tunnelku wuxuu noqon karaa private IP address sida halka kaaga muuqata private IP address waa 192.168.1.0 halkan waxaan arkaynaa inuu yahay interface kani 1 kaasina uu 2 yahay kaasina 3 subnet kana la isticmaalayo laakiin interface-yada internetka ku xidhan waa public IP address okay similarly to ARP markay noqoto sidii ARP oo kale address resolution protocol ma xasuusanaa talow marka aad haysatid IP addresska ee aad marka addresska raadinaysid ayaa la odhan jiray ARP destination IP addresska markaan la aqoonin destination back addresska markaan la aqoonin ayaa la isticmaali jiray ARP dibadoo la baafin jiray device kabacdi waxay dynamically waxay dhisanayaan wax loo yaqaano database storing in the hubkay ku dhisanayaan kaasi oo spokesku ay informationka ka soo doonanayaan ugu horeyn protocolku sidoo kale u samaysan tahay computerka aan idhaahdo branchkaasi waa source IP address buu leeyahay source IP addresska horta payloadkii sidan u ahaan jiray data source IP addresska u horeeya destination IP address destination IP addresska lama yaqaano laakiin waa sida ARP oo kale generic ba meeshii jira protocolka inuu isticmaalayno ee qabanaya shaqada ugu badan source IP addresska destination IP addresska labadani maxay kala yihiin qaybtan hore waxa weeyaan qaybta physical addresska qaybta logical addresskuna waa kan then datadii baa halkan imanaysa marka waxaa la rabaa device-kaasi ama hubkaasi wuxuu rabaa inuu la xidhiidho HQ-ga wuxuu leeyahay I want to tunnel something to branch 2 inaan la xidhiidhaan rabaa what is the public IP address you soo weydiinayaa kala wuxuu soo weydiinayaa kan loo yaqaano HQ-ga ama hubka oo sida kale noqonaya sidoo kale server marka routers can be configured as waxa loo configure gareyn karaa negative server ama negative client marka server waa inaan kan ka dhignaa kala la soo xidhiidhaya la dhex marayo inaan server ka dhignaa ka kalena waa inaan ka dhignaa kuwa kalena client soo inaan ku configure gareynaa marka si aan intan soo koobo number 1 spokesku wuxuu isku dayaa inuu la soo xidhiidho hubkan wuxuu leeyahay established hub to public IP address 222 isagoo public IP addresskiisu yahay 2.2.2.2 wuxuu rabaa inuu la xidhiidho hubka muxuu leeyahay negative request registration request wuxuu soo codsanaya wuxuu leeyahay IP addresskii waa ka fadlan iqaabil kanina sidoo kale isna wuxuu leeyahay wuxuu establish gareynayaa tunnel to hub ayuu hubku iska register gareynaya isna wuxuu leeyahay IP addresskii waa kan kabacdi marka sidaa la isku barto waxa dhacaya markaasi mid kastaaba midka kale uu barto kani communication buu la soo sameeyay kana communication buu la soo sameeyay step 2 waxa weeyaan greet ayuu odhanaya hubku you have two spokes we have two spokes laba spoke baan haysanaa laba client baan haysanaa adding their public IP addresses to my negative resolution cache ayuu ku soo cache-kayga waan save gareysay book-kaygan ku darsadayaan marka waxaan aqaanaa buu leeyahay tunnel-kayga 192.168.2 inaan u sii marayo 2.2.2.2
192.168.3 oo tunnelkayga dhammaadkiisa kalena inaan usii marayo 3.3.3.3 ayaan aqaanaa buu leeyahay. intaa markuu yaqaano step number 3 waa kan, waa 5 step horta aan marka horeba ku taabsiiyey 5 stepka saddexaad wuxuu leeyahay markaasi inuu usoo diro markuu rabo. tusaale ahaan I wanted to send something to spoke to baan doonaya inaan la hadlo leeyahay. Can you tell me the public IP address? ama ii sheegi kartaa public IP address kan soo maray request. deetana wuxuu leeyahay step 4 sure you can reach them at 3.3.3 ayaad ku gaari kartaa buu leeyahay. marka intaa markuu sameeyo waxaa labadii hub waxay awood u yeelan doonaan inay wada xidhiidhaan. marka excellent, now I know the public IP address of spoke to, I can send them something directly ayuu odhanay si toosan ugu diraya. intaa wixii ka dambeeya communicationku marka waa up, devicesku way isweydaarsan karaan. intaa wixii ka dambeeya inaguna waxaan samaynaynaa labkii baynu samaynaynaa. markaas intaan meesha ku sheegnay ayaynu configure garaynaynaa step by step ayaynu la soconaynaa. waxaa iga xasuusinaa inaan marka hore qaybta basigiska oo dhan aanan duubaynin ee aad channelka qaybta comprehensive routing and switching inaad ka soo dhigan doonto basigiska hadday kaa maqan tahay weeyi. Assalaamu calaykum.